أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي وعاد بان سلامي عاد بان سود ويني ما شاء الله ميل باك داونس ولا لهي سود هذا هو عصب طيب بليز سبسكرايب قرأ إن شاء الله 10 في وقف ولا لهي هذا 10 كهشام بليز لايك قرأ and share قرأ أتذكر أوباهن إن شاء الله and ما أنت محن قاعدين two ways to pronounce the word the. Two ways to pronounce word the, this word. Laba siyood ayaa loogu dhawaaqaa ereyga the. I'm just saying the right now because waxaad garanaysaa ereygani waxaa lagu dhawaaqaa laba. The and the. The and the. Magarata ayaa loogu dhawaaqaa walaalaha insha Allah. And intan sano aan ku hadlayay weligay ma dareemin sida aan ugu dhawaaqayo so maalin dhaweeyta markaan zoomka ardada aan casharka ka saxayay ayaan waxaan nafsadeyda aan markaan ardada aan saxay waxaan maqlayaa marna waxaan leeyahay the marna waxaan leeyahay the markaasaan fikirtalow maxaad saa u leedahay so haddaan eegay waxa weeyaan waaba sharciga ka jiro oo macnaha sida loogu dhawaaqo marka wadankii luqadaada tahay oo kale ma ku fikiraysid waad ku hadlaysaa waad garanaysaa waxa laga yaabaa in sharciga aad fahamsaneen laakiin marka qofka dhaho inuu qaldan yahay waad garanaysaa sababto luqadaadii oo kale noqdo luqad Soomaali marka ku hadlaysid ka waran qofka kale oo yimaada hadduu wax qalday waad fahmaysaa adigu aan sharciyadiisa aan garanayn marka ardayga maadaama aan ka saxay waxaan leeyahay nafsadeed waxaan maqlayaa inaan leeyahay marna the marna the internetka hadaan fiiri waxaan dareemay inuu sharci jiro si way loogu hadlayo marka sidaa aawada ayaan walaalaha idinku soo dhigay insha Allah aad barataan insha Allah walaalaha idinka aad iska saxdaan hadda insha Allah maadaama qofka uu ardad cusub baranay aan ahayn arday oo macnaha native amal aanan halkan ku dhalata ama muddo joogin luqadda ingiriiska caadi ka ah waxa laga yaabaa inay hal nooc u qaataan marka walaalaha waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaad idinku bara inta aad macnaha ka faa'iideystaan insha Allah oo aad bilowga markaad baranayso aad ereyga iska saxda insha Allah marka laba siyood ayaa loogu dhawaaqaa ereyga the so waxaan idin barayaa simple rule si aad u fudud insha Allah simple rules waxaan rabaa inaanan waxyaalo badan aan soo dhigo this soo micnay awal aan yeeri jir ma rabo wax yar oo qof walba si uu ku fahmayso marka sida loogu dhawaaqo markay soo xigsato shibane markaste Englishkana saad ogtay waa maxay shaqal shibane alfabeetada waa shaqal shibane marka shaqal shibanaha marka aad ku dhawaaqa aad garanaysa waliga waxaad dhageysanaysaa codka sida uu dhawaaqmayo ma vowel buu dhawaaqmaya mise wuxuu dhawaaqmaya maxaa iraada shibane macna vowel or consonant waa shibane vowelna waa shaqal marka dhageyso ha u arkin like ereyga c baan leeyahay saa waa ha u fiirinaysaa sababtoo waa ognahay waxay yihiin maxaa la sheeg consonant waxay yihiin waa shibane waan garanayna laakiin inaad dhageysataa la rabaa ereyga vowelka ah ama ereyga oo marka uu yahay sida loogu dhawaaqaya sida loo sometimes yada marna waxay noqotaa shaqal marna waxay noqotaa shibane ereysaas oo kala jira ma garatay marka u dhageyso u fiirso walaalo insha Allah marka laba sida loogu dhawaaqo Soomaaliin sida loogu dhawaaqo markay soo xigsato shibane markuu shibane soo xigsato that means markay consonant soo xigsado iyo vowel so numberka ugu hore aan qaadanay waa maxay the sound like the before a consonant marka maxaan ku dhahay ereyga macna the waxa loogu dhawaaqaa the marka uu soo xigsado consonant of Soomaali waxaan ka wadaa markuu shibane codka shibanaha aan ku leeyahay cod baa laga hadlaya meesha codka shibane uu soo xigsado ereygaas the waxa loogu dhawaaqaa the markasta the ayaa loogu dhawaaqaa marka let me give you some example and see walaalaha insha Allah halkan maxaan ku haysanaa the dog the cat the man the university the boy mujeda the dog the cat the man the university the boy halkan maxaad aragtaa waxaad aragtaa shibane this all mujeda shibane an halkan waxaad aragtaa shaqal laakiin iska si baan ugu dhawaaqaya why this shaqalkan bal dhageysa markaan ku dhawaaqayo maxaa la university maxaa la ya
waxaad maqlaysaa codka ya saas waa marka maadaama ya aad maqlayso ya-dan maxay oo yudan waxay codkii waxay qaadanaysaa ya so ya-da waa maxay ya-da waa oo halkan oo bilow marka ya-da ee bilow always tahay waa consonant way so marka halkani ma dhehaysid the ma dhehaysid waxaa la yidhi the ujeeda waxaa laga yaabaa arday cusub inay xoogaa ku wareen laakiin ingiriiska waxaad dhegaysanaysaa dhawaaqa so halkan dhawaaqa university waxaad maqlaysaa ya so sidaa aawadeed ayuu wuxuu usoo galayaa the qaybta the-na gadaal baan ka baranay the boy ujeeda the boy the dog eyga the cat bisada the man ninka the university means jaamacadda the boy na wiilka marka halkan qaybta waxaan ku baratay inaan dhahayo the markuu consonant soo xigsado oo consonant dhawaaq uu soo xigsado waxaa leedahay the walaalahay the aleed ogaada insha allah ya the aleed halkan maxaad aragtaa you laakiin codkiisu waa maxay ya walaalahay sidaa aawadeed waxa dhawaaqa noqonaya the marka aanan qaybta labaad aragno tan qaybta labaad the sound like the before vowels markuu vowel soo xigsadan oo dhawaaqa vowel soo xigsado waxaad leedahay the hadda maxaan dhahayni the mugta hadda waxaa leedahay the walaalahay dhegaysta insha allah example ahaan the egg the apple the owner the orange the hour halkan maxaad aragtay bal halkan dhegayso the egg the apple the owner the orange the hour bal halkan fiiri halkan maxaa aragtaa h baa aragta the hour ereygan h-kani waa silent lama akhriyo so maxaad akhrinaysaa o u r sidaa aawadeed ayay waxay qaadanaysaa the so halkan maadaama h-ta ay quiet oon la akhrinaynin so waxaad akhrinaysaa only here saa aawadeed markaan kule codka dhegayso waa beri muhiim qofkiina cod dhegaysto markasta walaalahay the hour so marka erey the ay soo xigsato wax shaqala ama wax cod shaqala ah waxaad u akhrinaysaa the aad u akhrinaysaa laakiin markuu consonant soo xigsato maxaad leedahay the so halkani erey consonant u jeeda laakiin consonant waa lama akhriyo sidaa aawadeed muxuu noqonayaa hour so the hour markasta the hour walaalahay so here the egg the apple the owner the orange the hour walaalahay markasta insha allah the egg ukuntii the apple tufaaxii the owner kii qofkii lahaa owner waa lahaansho the owner qofkii lahaa the orangeadii the hour saacadii waa saacad hour orange owner apple and egg walaalahay markasta insha allah I'm cooking the eggs waxaan karinayaa ukumihii I'm cooking the eggs maxaan leeyahay waxaan leeyahay the waxaad maqlaysaa the aa maqlaysaa okay walaalahay why waxaa soo xigsada shaqal vowel halkan fiiri all the apples tasted bad all the apples tasted bad all the maxaa maqlaysaa the apples all the apples tasted bad macnaha tufaxyaashoo dhan dhadhankooda waxay noqdeen dhadhan xun taste waa dhadhan tasted waxay u dhadhameen bad means xun dhadhan maan lahayn dhadhankooda aad buu xumaa saankooda so maxaad aragtay the sababta waay shaqal ereyga haddaad dhegaystay the apples so waa maxay waa shaqal cod waana shaqal insha allah walaalahay the baad leedahay markuu shibana soo xigsan arag the car waxaa leedahay the car is blue gaari waa maxay waa blue gaari waa blue halkan w the wind broke the umbrella halkan waxaan leeyahay halkan waxaan leeyahay the ujeeda the wind broke the umbrella
the wind broke the umbrella ma garat walaalahay marka akhriska dhageysta carabkaaga ayaa baranaya waxa ma garatay insha Allah the wind the w why this w maxay tahay waa shibane so ereyga maxaa leeyahay the wind dabaysha broke waxay jibisay the umbrella so halkan maadaam this ujeeda the umbrella you heard umbrella umbrella you heard the word umbrella umbrella so ereygaanayti maadaam uu dhawaaqayo shaqal waxaa leedahay the umbrella the wind broke the umbrella the wind broke the umbrella the wind broke the umbrella makasta walaalahay marka waa saa the cat is hungry the cat is hungry bisada way gaajaysan tahay so waxaad maqlaysaa the cat makarta walaalahay the cat is hungry bisada way gaajaysan marka walaalahay waxaan rajaynayaa insha Allah in aad fahanto maxaa yiraahdaa casharka insha Allah una ku fudaado oo aan ku wareerin qof dhahaya marna the walaalahay saa ogaad insha Allah markuu xarafka uu soo xigsado dhawaaqa shaqalka uu soo xigsado waxaa leedahay the bale laakiin xarafka macnaha ereg the hadduu soo xigsado consonant dhawaaq hadduu soo xigsado waxaad leedahay the marka walaalahay waxaan rajaynayaa inuu ilaahay idin fududay qaar baa idin rajayn dhamaantii insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته